بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وسلام على عباده الذين اصطفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan jeclahay maanta halkan inaan kusoo qaato cashar la xiriira dhamaystira oo aan kusoo gabagabaynayo casharada aan ugu hadlayay laylatul qadriga waxaan soo sheegay laylatul qadriga in quraanka laga arki karo si macnaha waadixa looga arki karo haddii si fiican loogu tadabburo loogu fiirsado dhowr meelood ayaan kasoo qaadanayaa macnaha aad ay u fara badanta meelaha laga arkayaa laakiin waxaan soo qaadanaya dhowr meelood arrinta koowaad oo soo qaadanaya waxa weeyaan horta ma reebana ijtihaadka in maxayata lagu ijtihaado oo quraanka laga baaro cilmi laga baaro ilaahay baana amray waa waajiba afala yatadabbaruuna alqur'aana ilaahay leeyahay walow kaana min cindi ghayri illahi lawajaduu fiihi ikhtilaafan kathiiran kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun liyadabbaruu aayaatihi macnaha xisaab ma lahan allah meel kale wuxuu ku leeyahay watafsiila kulli shayin maa faradnaa fi lkitaab min shay waxba loogama tegin quraanka shay walba ayuu cadaynayaa subxaan allah marka cajiib weeyaan calaa kulli xaal quraanka in lagu tadabburo weeyaan wax walbaa laga helayaa cilmiya waxaan jeclaa maanta inaan ka hadlo arrintaas iyada su-aalo laysoo weydiiyeen aan ka jawaabo cadaymo kalena aan soo qaato haddii ilaahay yidhaahdo laylatul qadriga meelaha ugu horreeya laga arki karaa waxaa weeyaan bilaha dabcan laylatul qadrigu bilow soo galaa bilo ayuu ilaahay ku tilmaamay 1000 bilood ayuu ka khayr badan yahay laylatul qadrigu meesha ugu horreyso magaca bil aad ka helaysaa waxa weeyaan suura baqara aayadda 185 magaca bil meesha ugu horreysa ee qur-aanka aad ku arkaysaa waa suura baqara waxayna ka hadlaysaa ramadaan bisha ramadaan ay ka hadlaysaa acuudu billahi min ashaytaani rajiim shahru ramadaan alladii unzila fiihi alqur'aan waa kow meesha ugu dambaysa ee magaca bil aad ku arkaysaana waxay ku jirtaa suura qadri laylatul qadri khayrun min 1000 shahrin ayuu ilaahay leeyahay 1000 bilood ay ka khayr badan tahay idan qur'aanka dhexdiisa biluhu waxay ku jiraan 22 meelood asxaabay 22 meelood ay biluhu qur'aanka kaga jiraan aayaduhu waa 17 meelaha ay ku jiraanna waa 22 meelood weeyaan 12 kamid ah waa mufradaad oo kali 9 meeloodna waa bilo qur'aanku wuxuu isticmaalaa bil iyo bilow isticmaalaa 12ku 22 noqon kartaa si kale haddii loo qoro oo dhinaca kale loo jeediyo 22 noqonaysaa mar kaleeto idan laba meelood oo 22 halkaas ka haysataa waa meesha ugu horreysa ee laga arki karo bisha maxayatu laylatul qadriga bisha ramadaan 22 inay tahay meesha labaad laga arki karo waxa weeyaan laylatul qadri ayuu quraanku yiraahdaa iyo laylatan mubaarakatan laylatan ayaa quraanka dhex raadshay waxaan ku arkay 7 aayadood oo kaliya inaad ka helayso laylatadas mucayanka leh الليل maahan 7 aayadood oo quraan kamid ah ay ku jirtaa hal aayad ayaa waxay wadataa laba leelay wadataa suura Araaf aayadda 100 suurada 7 aayadda 142 inay taan jeclahay ay ku jirtaa laba leeyla oo wacadna Muusa 30 leylatan aayadda qaybteeda dambe waxa ku jirta fatama miiqaatu rabbihi 40 leylatan tobanna waa ku dhamaystiran tobanna ب10 aayad sii jirta ayadoo tobanna ku dhamaystirnay على كل حال ayadaas waxay leedahay laba leeyla ay leedahay oo tawan ku dhex jirto waliba labada leeylo marka waxa jirta marka al-qadri waxay ku jirtaa quraanka dhexdiisa 3 meelood iyo 3 aayadood oo kaliya ay quraanka dhexdiisa ku jirtaa ma qadarullah haq qadri maaha qadarka maahan al-qadri marka la yiraahdo magacaas quraanka sida ku jirto saxda suura qadri 3 meelood oo kaliya ayaad ka helaysaa quraanka dhexdiisa waxayna ku jiraan saddexdaba suura qadri ku jiraan magaca mar kaleeto isku dar 3 iyo 7 isku dar waxa weeyaan 10 marna waxay noqonaysaa 3 lagu dhuftay 7 22 noqonaysaa hadda dhinacaas u xisaabiso iyadoo dhinaca kale loo xisaabi karo laakiin sida macquulka sidaas weeyaan sidoo kaleeto cadaymaha kale soo socda si xoojinaya magaca la yiraahdo إن أنزلناه في ليلة مباركة أوكي ليلة مباركة ليلة وسوء أرجني وتضبع عيضات مباركة مجع صحراء سداس ويا لماشى صورة بدخان سدح ميلود القرآن كجرتا المباركة مركي اللي يحدنا هل حبة كسية ده المباركة أفر نقول مركي مباركة لكن ماذا وحيتها أفر ماذا وحيتها أن المباركة صورة اللي يحدو صورة قصص أي حجرتا عيض في البقعة المباركة من الشجرة على كل حال مباركة مركي اللي هذا سداس
ay ugu jirto suurad dukhaan 3 meelood oo quraanka kaga jirtaa 3 lagu dhuftay 7 waa 21 mar kaleeto 3 lagu daray 7 waa 10 halkaasay ku idishahay waxa ku soo harta leylada labaad maxay tahay oo ayada ku dhex jirtaa habeenku wuxuu ku soo bilowdaa Australia iyo New Zealand haddii laga soo bilaabo halkaas markii gabalku u dhaco ayaga haddii laga soo bilaabo waagu markuu u bariyo dhul fara badan ayaa markaas habeenku u bilaabmaya oo America iyo meelahaas ka mid yihiin markaas habeenkaas labaad oo ayaga maalinta ay u tahay dhul badan habeen u sita sidaas oo habeenkii laba u noqonaya laba habeen oo isdaba socota way leeyahay qadrigu qof kastaana fahmi kara taas waa simple weeyaan marka Australia ay habeen u tahay gabalku u dhaco dhul badan maalin u tahay markii ayaga maalin u noqoto waagu ka dhamaado oo qorraxda dambe u soo baxdana dhul badan habeen u sita marka taas way fasirkayga aniga waa laba habeen oo isdaba socota weeyaan oo cadaynta saddexaad weeyaan cadaynta afraad waxay noqonaysaa quraanka wax la xiriira weeyaan leeyahay qadriga iyo quraanku waa xalaaqad weyn ka dhaxeeya quraanku wuxuu ka bilowdaa 114 suuradood 15 xaraf ayuu ka bilowdaa 15 xarafna ku dhamaadaa marka waxa la weydiiyay suuragal ma ahana leeyahay 30 xaraf ma dhammo luqadda carabiga waa run ma dhamma laakiin isku laabmayaan qaar badan soo laabmaya waxa jirta 7 xaraf oo kamid ah xarfaha carabiga ama abjadka carabiga oo suurad quraan oo ka bilaabataan aysan jirin suurad quraan oo ku dhamaataana ma jirto ajiib weeyaan waliga ma fahanti taas ma soo ogeed balaga tirso waxa weeyaan xarfahaasu waa jim kha dal za ghayn shin dad todobadaas xaraf hal suurad oo quraan oo ka bilaabataana ma jirto hal suurad oo quraan oo ku dhamaataana ma jirto ajiib weeyaan marka 7 ka jar 8 22 xaraf soo harta exactly quraanka bilowgiisa suuradaha quraanka bilowgooda iyo dhamaadkooda 22 xaraf ay ku wareegayaan 9 kamiduhu way soo laabmayaan labada dhinacba waad ku arkaysaa bilowga iyo dhamaadka waad ku arkaysaa 12na ma soo laabmayaan waa mufradaad weeyaan 12 kaas mar kaleeto waa sidii bilihii oo kale 22 u bedel misana 22 noqonaysaa ajiib weeyaan marka waa cadayn qawiya oo aad iyo aad u xoog badan weeyaan marka waxa jirto oo kaleeto arinta la yaab kale oo jirta waxay tahay haddana hadaa rabto 15 qaado 15 waxaad ku dartaa 7 xaraf oo maqan 22 noqonaysaa cadayn kalena ku sii hayaa waxa jirta 6 suuradood oo quraanka kamid ah oo suurad walba xarafka ka bilaabatay ku dhamaataa subhanallah wa suura kahfi suurada lira faadir suurada lira fatah suurada la yiraahdo maxayatu nuux suura nuux suurada lira nuun suurada la yiraahdo ida jaa nasrullah todobada suuradood 6 suuradood suurad walba xarafka ka bilaabatay ku dhamaataa suurad walba xarafka ka bilaabatay ku dhamaataa iyo waliba suura jaathiya oo xaam miim ka bilaabata miimna ku dhamaata taasuna waa second weeyaan in ajiib kale tilmaan kale bixinaysa oo la yaab leh bixinaysa idan firkiidu marka quraanku qaab noocaas u dhisan yahay la yaab leh 6 xaraf hadii hal dhinac lagu daro oo dhamaadka quraanka suuradaha quraanka xarfay ku dhamaadaan lagu daro 15 22 noqonaysa mar kaleeto ama bilowga ku dar ama dhamaadka ku dar 22 noqonaysa mar kaleeto marka wax macnaha iska soo laabanaya oo tiradii ka batay weeyaan meel walba xuruf muqaddi aan ka helay meel walba aan ka helay meel tira badan ayaan ka helay maxayto 22 kaas iga soo bixisay mar walba iga soo boodisay ala kulli xaal arintaas ayaan arkay asxaabtii jawaabta su'aasha soo weydiiyana jawaabta saxda waxay tahay walaal quraanka bilowgiisa iyo dhamaadkiisa suuradaha quraanka xarfay ka bilowdaan iyo xarfay ku dhamaadaan waa 22 xaraf weeyaan labada dhinacba hal dhinac hadaa qaadatana waxa weeyaan waxay noqonaysaa maxay hato 15 xaraf ay noqonaysaa dhinaca kale 15 xaraf noqonay laakiin isku dhex geliya isku dhex laalaamayaan marka sidaasay xisaabta saxda ku imaanaysaa oo ah 22 kaas xaraf 7 xarafna banaanka taagan tahay 7 xarafna mar kale waxa ishaaraya suuradaha quraanka ee xarafka ka bilaabaan ku dhamaada ayaa si toos u tilmaamaya marka subhanallah marna caadi maaha marnaba caadi maaha intaas ayaan ogaaday باذن الله الكريم haddaan asiibay
وأنا حق الشيء إلهي بيوافجي هذا خلدنا إلهي عفشي ذنب دافع ودي سنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.